السلام عليكم. Malala Yousafzai waa gabar yar oo reer Pakistan ah. Waxa ayna u doodaa xuquuqda waxbarashada gabdhaha. Waxay hindhaha caalamka qabteen gabadhan yar markii iyadoo 15 jir ah ay ka badbaaday rasaas ay madax kaga dhufteen xubno ka tirsan ururka Taliban. Sidoo kale waxay gabadhani ku guuleysatay biladda nabadda adduunka Nobel Peace Prize. Malala Yousafzai waxay ku dhalatay magaalada Mingora ee waqooyi galbeed kaga taala waddanka Pakistan. Waxay dhalatay 12 bisha July sanadkii 1997. Qoys dabaqada dhexe ayay ka dhalatay. Magaalada Mingora waxay kula nooleed qoys ka kooban laba wiil oo iyada ka yar. Hooyadeed iyo aabaheed. Aabaheed wuxuu ahaa shakhsi u dhaqdhaqaaqa xuquuqda waxbarashada qofka ee aasaasiga ah. Waxaanu lahaa dugsi ay ardaydu wax ku bartaan, sidoo kalena waxa uu ahaa abwaan sameeya tixda. wadadaas oo isagu maray ayay inantiisa Malala iyadana raacday. Isagana markasta ku waanin jiray inay maalin u noqoto gabar wax baratay. Iyaduna waxay mar walba jeclayd inay noqoto dhaqtarad caafimaad, balse aabaheed taa uu ka duwanaa. Wuxuu la rabay inay gasho siyaasadda oo maamulka la qayb qaadato. markii ugu horeysay ee ay Malala ka hadasho xuquuqda waxbarashada gabdhaha waxay ahayd 2008kii. waqtigaas oo aabaheed u kaxeeyay shir lagu qabanayay magaalada Peshawar. shirkaas oo ay soo qaban qaabeen ururka Suufiyiinta iyo maxkamadayaasha ee Peshawar Prize Club. intaas kadib waxay warbixino ku saabsan xaaladda ay ku sugan yihiin hablaha deegaankeeda wax ka barta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan ururka Taliban u gudbin jirtay idaacadda BBC-da. ururka Taliban ayaa ku dhawaaqay 15 bishii January 2009 in gabdhaha waxbarashadu mamnuuc ka tahay dugsiga aan aadi karin ilaa amar dambe ka soo baxo. tani saameyn badan ayay ku yeelatay Malala iyo habdhihii kale ee dugsiga dhiganayay. muddo yar kadib ururka Taliban ayaa dib u ogolaaday inay gabdhuhu aadi karaan dugsiga, balse hal shardi bay ku xireen oo ah inay xidhaan hijaabka. sanadkii 2012 kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha ururka Taliban ayaa waxay go'aan wadajir ah ku gaareen inay ka takloosaan Malala Yousafzai. 9 bisha Oktoobar isla sanadkaas ayaa Malala madaxa bad kaga dhuftay dabley Nohiran. iyadoo saaran baska dugsiga waxa kaga dhufteen dhafoorka, waxaana markiiba si degdeg ah loogu qaaday dhakhtar ciidan oo ku yaalay magaalada Peshawar. halkaas muddo xaaladeeda lagula tacaalay. markii dambena waxa loo qaaday magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska. 17 bishaas ayay komadii ka soo baxday. marba marka ay ka dambayso xaaladeeda way ka soo raysanaysay. Malala Yousafzai kadib waxay soo jiidatay hindhaha bulshadeynta caalamka, waxaana ay ku guuleystay bilado badan oo ay ugu weyn tahay tan nabadda adduunka Nobel Peace Prize. waxa ayna noqotay qofkii ugu da'da yaraa ee abid ku guuleystay biladan. nolosheeda inta badan waxay ku qaadatay waddanka Ingiriiska. waxbarashadeedana halkii ay ka sii wadatay sanadkii 2020 bay ka qalin jabisay jaamacadda Oxford. intaas ayuu nooga egahay muuqaalkeena maanta. intaan ka kulmi doono muuqaalkiisa. amaan Allah.